بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب واللبي لباتنك سبتمبر لبدكم لباتني كو وهبين تلادو أي سبحيسو أربعان أي سوق ليسو مركا لكسو دوادا موقالة تعنها ها oo ku saabsanaa maadada Ingiriiska gaar ahaan grade-ka 8aad waliba waxaan ku jirnay unit-ka labaad oo ku saabsan in the examination room hore waxa uu soo hadalnay questions-ka tooska ah su'aalaha direct-ga iyo exercise-ka koowaad iyo kan labaad muuqaalkan waxa kaga hadlaynaa exercise-ka saddexaad oo ku saabsan rearranging the letters xuruuf oo dib loo habeynaayo lana saxaayo sida u qoran yihiin kuna qoran page-ka 21aad su'aasha waxay dhigaysaa marka rearrange the letters xarfahan dib u habee to form si ay uga dhigto correct words eraya sax ah you have learned before oo aad hore u soo baratay marka rearrange the letters xarfahan dib u habee to form si ay u samaysid the correct words erayada ugu saxan you have learned before oo aad hore u soo baratay erey kuwaad marka saas isku qasan yahay NATIONXAMI oo isku qasan yahay haddii la toosiyo marka inkastoo u baahan yahay in lagu fiiriyo il dheer aad loo fiiriyo waxa soo baxaysa examination marka letterskaas haddii la isku toosiyo ereyga correctiga ah ee aad hore u soo baratay wuxuu noqonayaa examination kan labaad asagana waa sidaas isku qasan yahay haddii la toosiyo waxa ka soo baxaya erey hore ah oo soo baratay oo ah candidate musharax ama arday marka erey toosi marka lagu leeyahay waxa laga wadaa xarfaha toosi marka lagu dhahayo waxa laga wadaa xarfaha isticmaalaysa oo kaliya mid kala banaanka ma keenaysid ama waxba ma tiraysid xuruuftaas inta isku toosiso waxa la rabaa erey sax ah oo aad hore u soo baratay inaad ka soo saartid kan saddexaad asagna sidaas isugu qasan yahay haddii asagoo saan ah aad toosiso oo aad isku daydo inaad ka soo saarto erey hore aad u soo baratay waxaad ka heli kartaa education marka ereygan haddii la toosiyo ama xuruuftan haddii la toosiyo waxaa soo baxayso education kan afraad xuruuftaas meesha ku qor marka haddaa rearrangement ku samaysid oo aad dib u habayso adigoo ka raadinaya erey sax ah oo aad hore u soo baratay wuxuu noqonayaa invigilator oo ah waardiye invigilator oo ah waardiye numberka ku xiga ee shanaad letterska saas ku qasan waa inaad ku samaysaa rearrangement dib u habeen waxaa soo baxaysa marka index oo micnaheedu tahay tusmo index oo tusmaa ka soo baxaysa meeshaas haddii xuruuftaas meesha ku yaalo si sax loo isticmaalo lana adeegsado numberka lixaad xuruuftaas saas ku qasan haddana waxaa ku samaynaysaa rearrangement waxaa soo baxayso erey oo aad hore u soo baratay waana nation marka fiirisid ma u malaynaysid inay nation tahay laakiin waa inaad si fiican yani uga fikirtaa nation micnaheedu waa qaran kan toddobaad asagana letterska saas isku qasan waxaa ka soo sameynaysaa erey hore aad u soo qaadatay waana malpractice hore aad u soo aragnay waliba waxa ku soo aragnay exercise-sidii hore waa si xun u dhaqmid in ardayga ama ardayda ay sameeyaan malpractice ama inay si xun ama si aan fiicneen ay u dhaqmaan kan sideedaad asagana letterskaas sidaas ayay isku qasan yihiin waxaa ku samaynaysaa rearrangement waxaana soo baxayso erey hore ah u soo baratay waana subject haddaa fiiriso marka hore haddaa aad ugu fikirto way kugu adkaanaysaa laakiin haddaa si qoto dheer u sii fiiriso ugu dambeyn waa helaysaa marka subject waa ereyga haddii la toosiyo subjectina waa maado midka sagaalaad ee ku xigo waa asagana letters isku qasan haddii rearrangement lagu sameeyo waxaa soo baxay leakage oo ah sirbixin ama wax furid wixii oo la furo oo leakage lagu sameeyo la bixiyo la sirbixiyo
marka ereygaas horna usoo aragtay waa soo qaadatay. nambarka 10aad ayagana waa letters iskugu qasqasan. haddii rearrangement aad ku samaysid waxaa soo baxay erey hore aa usoo baratay oo ah rasalin. rasalin in badan waa kasoo hadalnay, waxaa kusoo sheegnay isku dhacdhicidda warqadaha ama caleemaha geedka codkooda waxaa la dhahaa rasalin. nambarka 11aad asagana waa letterskaas isku qasqasan, xuruufta isku qasan. haddii dib aa u habaysid waxaa kuu soo baxay erey aad hore usoo baratay waana center. center waa xarun. center waa xarun ama dhexe. dhexena way noqon kartaa, xarunna way noqon kartaa, horena usoo bartay. nambarka u dambeeya ee 12aad xuruuftaas isku qasqasan haddii aad ku samaysay arrangement waxaa soo baxaysa pyramid oo ah ogolaasho. pyramid waa ogolaasho, horena usoo aragtay. marka 12kii number oo ahaa xuruuf isku qasqasan lagaana rabay inaad ka soo sameyso erey saxan oo aad soo baratay halkaas ay ku egyihiin. meeshaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalka waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto aad subscribe dhahato. haddii hore aad subscribe u dhahatayna inaad muuqaalka la garayso, sharena garayso. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.